ducada ilaahay inuu kaa aqbalo marna waa qaabka uu aqbalo marna waa waxyaabaha xoojiye inuu aqbalo waxyaabaha keena ilaahay inuu kaa aqbalo qayb waa qaabkaad u ducaysanayso qaybna waa wakhtiga aad ducaysanayso qaybna waa waxa aad baryaysayd weydiisanayso intuba waxay saamayn ku yeeshaan in ducada laga aqbalo markaan ka soo tagno baahida iyo dareenka iyo isdhiibitaanka qof baryotamaya waa qof isdhiibay oo gacmaha taagtay waxaad u baahan tahay ilaahayna la kala baryo ogsolama dhihin ereygana la kala heliyo ilaahay markaad baryayso baryada isdhiibitaanka erayada aad adeegsanayso iyo sidaad ereyga u isticmaalayso saamayn bay yidhahdaa mar waxaa loo baahanya ducadaada ilaahay inaad qirto ood ammaantiisa iyo awooddiisa oggolaato qalbigaad ka oggoshahay keliya maaha afkaaga inaad ka qirato